tijaabi inaad si dhab ah u jeceshahay. Muuqaalkan waxaan kugu weydiin doonaa 5 su'aal. Su'aal kasta waxaa lagu qaadanayaa 1 darajo. 5toodu waxay isku noqonaysaa 5 darajo. Waxaad noogu jawaabaysaa yes ama no. Waxaan rajaynayaa inaad iigu la wadaagto qaybta commentiga inta darajo aad hesho. Aan bilowno. Su'aasha koowaad. Qof markaad wacdo haddii lagu dhaho moobilkiisa waa mashquul, haddana cabaar kadib aad ku celido. Sidii oo kale haddii lagu dhaho haddana mar saddexaad aad ku celiso. Sidii oo kale haddana lagu dhaho isla markii waad murugootaa, waxaadna soo muujisaa calaamadaha masayrka adigoo isla markii ka fakaraya arrimo kale. Su'aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay, qof markaad muddo kala maqnaataan waad u xiistaa, waxaadna isku daysaa inaad wacdo adigoo mararka qaar ka baqaya markaad wacdo ama lagu dhibsadaa ama yacni si kale lagu arkaa. Su'aasha saddexaad. Qofkaas markuu ku soo waco waad doolla cadeysaa ama waad faraxdaa, sida qof sugayay oo kale ayaad u doolla cadeynaysaa, waxaadna muujinaysaa isla markii farxad badan. Su'aasha afraad. Qofkaas kama xanaaqdid wax kasta uu ku dhaho, xitaa hadalla adiga dhibsanaysa hadduu kugu dhaho, marnaba ma xanaaqayso, wax murugana uma muujiyayso. Su'aasha shanaad waana su'aasha ugu dambaysa. Qofkaas hadduu muddo ku soo wici waayo waad murugootaa, ama xitaa haddii aad adigu wici weyso waxaad dareentaa murugo badan, walwal badan ayaa kugu furmaya, stress badan ayaad dareemaysaa. Waxaad isweydiinaysaa inaad tahay lonely, yacni qof keligiisa ah, ama inaad lamaano leedahay ayaad isweydiinaysaa. Saaxiibayaal, waxaan filayaa su'aalaha si sax ah inaad uga jawaabatay. Natiijadu waxay tahay haddii aad 5 dhibcood haysato qofkaas si dhab ayaad u jeceshahay. Haddii aad haysato wax ka yar 3 qofkaas ma jeclid laakiin waad rajaynaysaa. Haddii aad 4 darajo haysato waad iska jeceshahay. Saaxiibayaal, la soco muuqaaladeena xiga. Waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalooyin xiiso badan. Intii aan muuqaaladeena xiga ka gaarayno waxaan idinkaga tegayaa khayr.